galmudug. Figiina astaan qaran baad ahaydeen haddaad doonaysid inaad dad iska dhicisid garab la'aan iyo kugu qabanin galmudug waa inaad ogaataa sida annaga qoorta noo surtay calanka galmudug ayaa stadium muqdishowdii ee ayada meel ayadoon banaanayn ayaa hal mar calankii cirka oo babanayo iyo astaantii galmudug oo ku taal ay iswada qabsatay marka adduunyadu in lagu duceysto ilaahow galmudug la'aan hana dhiganay banaga soo gaartay banan waana ogaa la'aanteed inay abaar tahay hadda ka horna faarax galooley ayaa wuxuu yidhi ilaahow galmudug iyadana ka alla magan la'aanteedana ka alla magan maxaa yeelay dagaal iyada aan ku jirina dagaal ma aha nabad iyada aan ku jirina nabad ma aha marka sidaas aawadeed galmudug sida la sheegay koobkii difaaca maanta ayada ayaa ku dhex jirto waayo madaxweyne xasan sheekh maxamuud meesha uu isku hadlayn karo inuu fariisto 3 bilood waxay noqotay galmudug uu difaaca ka galo halkaas meesha uu taariikhda uu ka galay ee asaga uu ka dagaalamayne hadda waa galmudug inaan siino maxaa diidaya libinteeda wiil geesi ah oo isu dhigay madaxdiisa oo aan gaari intaasoo qarax iyo intaas la soo abaabulay ee uu u socday inuu qarxiyo madaxweyne qoor iyo raggii la joogay oo aad garanaysaan kulligooda wiilkii geesiga ahaa ee isu dhigay intay iyaga ay dhiman lahaayeen anaa dhimanaya yidhi hadda meel aan galmudug ahayn oo qofaa isu dhigay gaari weli ma hayo aniga asigoo badbaadinayo geesiyadii asaga madaxdiisa ay ahayd ayagoo ku shirayo meel marka galmudugay hanii'an lak waxaan idin leenahay hambaliyo awalba cabdulaahi ciise maxamuud bidaara idinka dhashay ceeb ma idan lahayn geesigii caydiida idinka dhashay ceeb ma idan lahayn weligiina astaan qaran baad ahaydeen inkastoo caydiidna beledweyne uu ku dhashay ogaada cabdulaahi ciisena afgooy uu ku dhashay halkaasaa qaaraanku iskaga xiran yahay ogaada waa tii aniga iyo saaxiibkayda sheekh jaamac barakamallaydii markii qaaraanka la isku darsanayay waxa aniga isaga inaan ka nimid noqonno isbahaysigii SNA waa halkaasi siyaasadda aan ku gaarayna 3 bilood inaan kusama madaxweyne aan noqdo gudoomiye ku-xigeenkii koowaad ee baarlamaanka aan noqdo wasiirkii arrimaha bulshada iyo dhaqan celinta aan noqdo siyaasaddaasi xudunteeda iyo ubuucdeeda meesha ay ka soo ambaqaaday waa isbahaysigaas ee uu hogaaminayay halyeygii SNA jenaraal caydiid ee ka soo jeedo galmudug marka galmudugay anigoo wax sir aan idin sheegayo markaan dadka reer shabeellaha hoose ka tirsanayay dadka aadka u degan ee qabooban ee aad ku taqaanaan nabadda ayaa waxaan idhahdaa waryaad hee war sidii reer galmudug dad iska dhiga oo kaca oo iska celiya ficiin oo iska daaya waxaan qabowga idinku hay haddii kale halkaasaan jaamacada idinka furaynahay nin walba asagoo indha adeegiisii watuu ka soo laaban doonaay sida ragga la iskaga dhiciyo soo barta haddaad doonaysid inaad dad iska dhicisidna garab la'aan iyo kugu qabanin galmudug waa inaad ogaataa ilaan hiil meeshaasaa uu kaa jiraa baan idhaahdaa soomaali oo dhan ayadoo maanta magaca dadnimada ay ka wada siman tahay sidaasoo kale dadsoorka inay ka siman yihiin booqashadoodii xaqiiqatan markii aan booqday shacabkii aniga aan ku soo arkay iyo waxa soomaalida laga aaminsan yahay waa kaaf iyo kala dheeri magaca awoowe ayaa dalxa la yidhaahdaa talyaaniga markuu masaafuriyey odayga uu markab saaray ee uu ku daray nin turjumaan ah magaaladii la geeyey ee 9 bilood uu ku noolaa waxay ahayd hobyo marka dadnimada qiimaha leh qalbiga furan ayaan caawa aniga idinku salaamayaa aad baad u mahadsantihiin galmudug mar kale iyo mar saddexaad sharaf bay ii tahay soo dhowaada